sida uu ku soo waramayo wariyaheena magaalada Jigjiga Xasan Cige mas'uuliyiin ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ku wareejiyay wafdiga dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Jigjiga dad lagu soo qabtay dagaaladii dhawaan ka dhacay deegaanada ku teedsan xadka gobolka Galgaduud iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. iyadoo la tixraacay heshiiska ay kala saxeexdeen dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya ee xalka kama dambaysta looga gaaray dhibaatadii ka dhacday xadka ayaa waxay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ku wareejisay wafdigii Soomaaliya ka socday maxaabiistii ay ku soo qabatay dagaalkii dhacay. Cabdi Daahir Cumar waxa uu kamid ah maxaabiistii lagu soo qabtay dagaalkii soo ku jira waxa uu ka waramay qaabkii loo dhaqmay qabashadiisii kadib waxa uu sheegay in si xushmad iyo dhaqan wanaagsan loo dhaqmay. waxa laga soo qabtay xadudka Itoobiya dagaal loo qabtay haddana waa fiican alxamdulillah aad iyo aad u fiican markii la soo qabtay ciidanka ay soo qabtay ciidankana ka baa la joogay dadweyne iyo sharaf wanaagsan aan kala kulmo haddana waa fiican alxamdulillah. Shialaqa Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa sheegay in maxaabiis wareejisani ay tahay mid ku dabaqan heshiiska labada dhinac ay kala saxeexdeen. annagoo taxgelinayna heshiiska la gaaray ayaan haddana maxaabiistii dagaalka lagu soo qabtay si fiican oo nabadgelyo ayaan ugu wareejinay. wasiiru dawladda madaxtooyada dalka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa u mahad celiyay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya sidii dirnada u soo dhaweysay iskuguna hawsheen xalka madambaysa laga gaaro dhibaatadii dhacday sidoo kalena aad u soo dhaweynayaan maxaabiista lagu wareejiyay ayna u soo dalxiis tagi doonaan deegaanka Soomaalida Itoobiya. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne ku-xigeenada maamulka walayaasha dhammaan مسؤولينتي عن ماشان أقول نميت سودا وينتي يكرامتي عن كلا فلاني عادي هذا نقوم هذا علمينا سيد قدومي وشاقي مركي كوبادي أنا ماشان نوع أهد وحنا نقول نميت سيدنا لو سودا وي يقدرينتي هم عموس كنا لو سمينا ند عادي هذا فرس الرأي وها ونادي هذا نقوم هذا علمينا وحيابي ماشان نقول نميت بدبكي كذا عاي حدوده سيدا هور الله شاقي وانكيشيني وشيس كشارة قرناد سفقرت بحالة جاري arrintaas inaysan dib u soo laabanin dadka deegaanka lagu baaqo nabadgelyo iyo wada noolaansho sidoo kale waxaan ka mahad celinaynaa sidii mas'uuliyiinta ugu horeeyay ay sheegeen maxaabiistii la qabtay ay nagu wareejiyeen maamulka dowladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan madaxweynaha aad iyo aad uga mahad celinaynaa markaan wareysana waxay noo sheegeen inay aad iyo aad si aan loo soo dhaweeyay wax dhib ah la kulmeen aysan jirin intii ay ku xirnaayeen meeshaan aad iyo aad aan uga mahad celinayna mucaamaladaas aydan waa deegaan aad iyo aad u qiimo badan dadkiisuna sharaf leeyihiin waana soo marna magaalada aad si fiican aan ugu soo dalxiisnay waan rajaynaynaa insha Allah waa deegaanka anaga waan imaanaynaa insha Allah. gudoomiyaha gobolka Galguduud ee Soomaaliya Xuseen Cali Weheliye ayaa sheegay in Jigjiga kala kulmeen soo dhaweyn heer sare oo ayna filaynin sidoo kalena la sii xoojin doono xiriirka wada shaqaynta gobolada Quraxay iyo gobolka Galguduud. madaxweynaha dowladda deegaanka Itoobiya madaxweyne ku-xigeenada golaha wasiirada golaha xisbiga shacabka dowladda ayaan u mahad celinayaa marka labaadna waxaan u mahad celinayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waftiga ka yimid oo hogaaminaya wasiirka dowladda madaxtooyada dhammaan arrimaha halkaan u nimid runtii si aad iyo aad u wanaagsan ayay ku dhamaadeen oo boqolkiiba boqol ah qodobo muhiim ah oo 8 ayaa la isla gaaray oo wax tar u ah deegaanadii ay dhibaatadu ka dhaceen iyo labada dowladoodba dhammaanna halkaan joogitaankii iyo safarkii aan ku nimid waxaan kala kulannay farxad iyo rayn soo dhaweyn aad u wanaagsan oo aan filayn annagu markii aan safarka soo ahayn oo aan islahayn wax kale wada kulmi doontaan laakiin halkaan runtii boqolkiiba boqol si aad iyo aad u diiran dowlad ahaan iyo shacab ahaanba lagu soo dhaweeyay markaynu ku laabano dalkeena oo aynu sheegi doonaa wixii halkaan maartayna kula kulannay wixii intaas ka dambeeyana wada shaqayn iyo xiriir maartay noo dhaxeeya labada dowladood dhammaan waxyaabaha ka jira ayaan iska kaashan doonaa hadday tahay nabadgelyo hadday tahay arrimaha kale ee jamaaciga dhammaan sida aan wax wada qabsan karno aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa madaxweynaha iyo dhammaanba mas'uuliyiinta kale halkaan hadda waxaan ku wareejiyay maanta maxaabiis oo maartay dadkii laga soo qabtay deegaanadii dhibaatooyin ka dhaceen insha Allah taala intii dhibaatadu ka socotay deegaanka iyana waa mahad kale oo aan ka celinayno aad iyo aad aan u mahad celinayna waa ku faraxsanahay safarkeena wuu hagaagsan yahay boqolkiiba boqol aan leenahay soo noqod wanaagsan aan leenahay oo u soo dalxiisi doonaa Jigjiga iyo deegaankaanba
إن شاء الله تعالى آدم ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugaas xasan ugaas maxamed oo ku hadlay magaca odayada ayaa bogaadiyey sida loo soo dhaweeyay iyo go'aanka laga gaadhay dhibaatadii dhacday marka hore waxaan salaamayaa madaxweynaha cabdi maxamed cumar iyo madaxda kale joogtaba ku soo dhawaada waad iyo aad sida naloo soo dhaweeyo sharaf kale oo qiimaha leh oo muuqaalka sharaf kale leh sida maxaabiistii nalagu wareejiyay sida aan u ballanay oo aan ahdiga u kala qaadanay hadda waxay ila tahay awal baan isku dadahayn awal baan dad wada dhashahayn wixii dhacana hadda waa wax dhacay waana insha Allah inaan ka gudubnana waa ku ballanay maxaabiistii waa sida hadda gudoomiyuhu u sheegay waa kuwa geesaha naga taagan waana ku ballanay inaan maaragtay iskala shaqeyno nabadgelyada iyo wanaagga iyo sharafka waana ballan iyo ahdi aan kala goosanay oo aan hadda gaarnay labadanaduba ku soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh